beledweyne lahaayo badi guri barwaaqe beledweyne lahaayo badi xiraa banaare beledweyne lahaayo badi guri barwaaqe beledweyne lahaayo badi xiraa banaare beledweyne lahaayo badi guri barwaaqe beledweyne lahaayo badi xiraa banaare golaha wasiirada maxaan ku yiraahdaa federaalka xildhibaanada labada aqal oo halkan nala jooga oo dowladda federaalka golaha wasiirada dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo xildhibaanadooda salaadiinta uu ugu horeeyo ugaas xasan iyo guud ahaan dadka halkan noogu yimid waxaan ku salaamay salaanta assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh ilaahay baa mahad leh oo noo fududeeyey inaan boqoshadan ku imaanno halkan si nabad ah alxamdulilaah waxaan rabaa inaan u mahad celiyo dowlad goboleedka Hirshabeelle uu hogaaminayo madaxweynaha Waare iyo sida wanaagsan ay noo soo dhaweeyeen iyo sida isu abaabuleen waxaan rabaa inaan u mahad celiyo salaadiinta halkan qaarkood fadhiya oo ugu horeeyo ugaaska sida wanaagsan oo quruxda badan ay noo soo dhaweeyeen waxaan rabaa inaan u mahad celiyo ciidamada qalabka sida amniga siday u ilaaliyeen amniga iyo siday weli u ilaalinayeen amniga aad iyo aad ayaan runtii ugu mahad celinayaa shacab weynaha reer beledweyne sida wanaagsan ay noo soo dhaweeyeen iyagoo tabaalaysan oo xaalad aad iyo aad u adag ee ku jira aad iyo aad ayaan runtii kulligan idinkugu mahad celinayaa halkan waxaan u nimid inaan idinla qaybsanno xanuunka iyo dhibka aan ka aragnay fatahaaddan iyo waxay keeneen oo weliba soo noqnoqonaya waxaan ognahay sanadkii lasoo dhaafay inaan lahayn wuxuu ahaa sanadkii ugu dhibka badnaa laakiin inuu kan ka dhib badan yahay waxaan ilaahay aan uga baryeennaa naxariistiisii jannadiisii intii dhimatay inta soo barakacdayna oo guryahooda ka soo tegayna oo lagu qiyaasayo 51,000 oo qoys laga yaabo boqolaalo kun oo qof inay yihiin oo caawa aanan haysan hooy iyo meel ay ku hoydaan runtii waa wax aad iyo aad looga naxo waxa weeye waa musiibo waa qadar Allah qadaraha Allahna waa aqbalaysaa laakiin ma qoonsanaysid waa wax ilaahay wato oo awoodeeda naga weyn hadda markaan soo dulmarayn dhulka xaqiiqatan waa arkaysaa wax naga awood badan inay tahay wixii aan soo aragnay sida biyaha u fadhiyaan dhulka iyo hadda markii aan tagnay anaga naftigeen oo aan dhex galnay magaalada inta ay biyaha joogaan oo dadka caadiga ah ee nolol maalmoodkooda u socda ay biyaha u dhex socdaan u adeeganayaan si normal ah waxa weeye waa wax awoodeena ka weyn laakiin bini aadan baan nahayo waa u diyaar garoobi karnaa waa yareyn karnaa laakiin qadar Allah cid celin karta ma jirto waxaan u mahad celinayaa dowladihii runtii ka soo jawaabay baaqii dhowr casho ka hor aan u baaqnay inayna kaalmeeyaan oo gargaar noo fidiyaan oo gurmadka ka soo qayb galaan aad iyo aad ayaan ugu mahad celinayaa guud ahaan gaar ahaan dowladda Jabuuti oo noqotay dowladda ugu horeysay oo noo keentay wixii awoodeeda ahayd hadday tahay daawo hadday tahay biyo hadday tahay raashin waa walaal jira aad iyo aad ayaan runtii dowladda Jabuuti iyo reer Jabuutiba aan uga mahad celinayaa waxaan rabaa oo kale inaan u mahad celiyo ciidamada AMISOM ee doorka ka qaateen kaalinta ka qaateen sidii dadka u badbaadin lahaayeen maxaa yeelay dadka fatahaadda intaan la eg oo aan caadiga ahayn oo hore Soomaaliya uga dhicin inta dhimatay iyo inta qaxday marka la fiiriyo runtii waxay ku timid tii Ilaahay iyo runtii dadaal badan ay galeen ciidamada AMISOM sidii dadkaas looga badbaadin lahaa dhibaatadaas ka jirta waxaan rabaa inaan u mahad celiyo iyagana NGO-yada non governmentalka oo runtii iyaga naftigooda qayb iyo kaalin weyn ka qaatay inay raashin iyo wax alla wixii karaankooda ah ay ku taakuleeyaan dadkan Soomaaliyeed ee tabaalaysan ganacsatada oo iyagana qayb weyn ka qaatay oo isxil qaamay oo aruuriye dhaqaale aad iyo aad u fara badan raashin badana u keenay dadka tabaalaysan ee waalahooda iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan gudaha iyo dibaddaba oo qof walba oo Soomaali ah dareenkaas qaba inuu dadka waalihiisa oo dhibaataysan sidii u gargaari lahaa gacan u siin lahaa
uu ka qaatay qayb aad iyo aad muhiim u ah waana dhaqan lagu yaqaano Soomaali waa sidaan ahaan jirnay weeye in qofkeena tabaalaysan oo dhibaataysan aan gacan siino aan isgargaarno waana wax Ilaahay uu na faray weeye mustaqbalka tan ugu dambaysa waan ugu soo noqdeen fatahadan waa tuu noo sharxay madaxweynaha sidii fatahadan ku timid marka in alla intii karaankeenna ah iyo ciddii khusayso hadday tahay dowladaha deriska iyo hadday tahay cid kasta oo aan la kaashan karno inaan yarayno ama aan ka hortagno runtii musiibadan hadduu Ilaahay yiraahdo marka ummadda Soomaaliya meel kasta ay joogaan mar kale waa u mahadcelinayaa sida ay qayb uga noqdeen gargaarkan dadka waalooda ay gargaareen iyo dadka caalamka ah oo runtii iyaga naftooda qayb ka qaatay qaar badan aan filayo inay noo socdaan waa mahadsantihiin waxaan Ilaahay ka baryeennaa inuu dhibaatooyinkan musiibooyinkan naga yareeyo waxa weeye waa inaan Ilaahay u noqono waa in qulubteenna wax walba waa qulubta weeye waxaan is leeyahay qulubteena aad u xumaatay marka waxa loo baahan yahay qulubteennii wanaagsanayd oo Soomaalinimada ku jirtay oo wadannimada ku jirtay oo iscaawinta ku jirtay iyo isjaceylka ku jirtay iyo is-ixtiraamka inaan dib u soo celinno wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu